ciidamadii ku soo dhaawacmay weerarkii dagaalyahanada al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanada Bariiri Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho iyadoona isbitaalka xoogga lagu dhabiibayo xaaladooda caafimaad. waxaa kormeer ugu tagay xubno uu horkacayo wasiirka wasaaradda gaashaaniga ee xukuumadda xilgaarsiinta wasiir Xasan Xuseen Xaaji ayaa mid u dul istaagay dhaawacyada asigoona warbixin ka dhageystay dhaqaatiirta ku howlan daweyntooda. intaas kadib wasiirka difaaca ee xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xuseen Xaaji ayaa ciidamada dhaawaca ah alla ugu baryay inuu caafimaad taam ah u siiyo kuwa weerarka ku geeriyoodana wuxuu alla u rajeeyay inuu jannatul firdawsa ka waraabiyo. sidoo kale wasiir Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka heli doonaan ciidamada dhaawaca daryeel iyo waliba ka warqab joogto ah. waxaan markii horeysa bogaadinayaa uma celinayaa ciidamada xoogga dalka meel kasto ay joogaan khaasatan waxaan u mahad celinayaa ciidamadii xoogga dalka Bariire iyo Awdhiigle kula galay dagaal al-shabaab oo cudurka ummadda Soomaaliyeed jibiyay ka guuleystay. waxaan leeyahay ciidamadaas waa mahadsantihiin, waxaad mudan tihiin in si gooni ah la idin taxigeliyo. waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka meel kastoo ay joogaan taliyayaasha ciidamada xoogga dalka. waxaan maanta soo ziyaartay isbitaalka xoogga dalka oo igu soo dhaweeyay agaasimaha isbitaalka xoogga dalka Dr. Sadaan kaas oo igu wareejiyay qiibaha ay ku jiraan bukaanada ka tirsan ciidamada xoogga dalka. waxaan la kulmay bukaanada la keenay isbitaalka meelo kala duwan oo dalka iyo kuwii ugu dambeeyaba. waxaan ilaahay ugu barinayaa bukaanadaas inuu caafiyo. waxay ku dhaawacmeen ayagoo cudurka la dagaalamayo, waxay bixiyeen dhiigooda iyo naftooda. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waa idinku faanaysaa. waxaana rajaynayaa ilaahay inuu idinka abaalmariyo. waxaan kale u tacsiyeynayaa qaraabada iyo ahladii iyo dowladda Soomaaliyeed intii ku shahiiday dagaalada kala duwan oo dalka ka socdo, khaas ahaan dagaalkii ugu dambeeyay. waxaa sidii ilaahay yiraahday walaa taxsabanna alladhiina qutiluu fii sabiilillaahi amwaat bal axyaa walaakin laa tashcuruun. waa mujaahidiin ku dhimatay dagaalka ayagoo ku jiraan cadowgana la dagaalamayaan. waxaan aaminsanahay ilaahayna hanaga aqbale inay shuhado yihiin dalkooda u dhinteen. waxaan rajaynayaa ciidanka qalabka sida meel kastoo ay joogaan waxay u dagaalamayaan mabda'aas oo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee meel kastoo ay joogto iyo qarannimadooda iyo madax bannaanadooda. maadaama hadafkaas weyn ay u dagaalamayaan isla markaasna ay difaacayaan dalkooda, dadkooda iyo diintooda, waxay ku taagan yihiin xaqaas waa inay ku taaganaadaan, ayna ku dagaalamaan si dalkeenu ula mid noqon lahaa dalalka ee degan, xasilooni lagu nool yahay, horumar la gaaray oo lagu naalanayo. waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay garab istaagto ciidanka xoogga dalka si dalka loo horeyn lahaa. ciidamadan dhaawacooda la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho isla markaana lagu dhabiibayo isbitaalka xoogga ayaa waxay ahaayeen ciidankii dagaalka kula galay maalin ka hor deegaanada Bariiri Awdhiigle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay sida ay sheegeen hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka xoogga dalka in jab xoogan ay gaarsiiyeen dagaalyahanada al-shabaab. walow dhankooda al-shabaab ay sheegeen in tiro ciidamo badan ah ay ka dileen ciidanka dowladda. ciidamada xoogga ayaa deegaano dhowr ah waxay kala wareegeen dagaalyahanada al-shabaab iyadoona deegaanada Bariiri Awdhiigle ay qayb ka ahaayeen goobihii ay sanado ka hor ay maamuli jireen dagaalyahanada al-shabaab. Cabdifataax Muumin 5 TV Muqdisho.